metabolismkaaga hadduu slow yahay markuu calooshaada saa u gasho cuntadu ayaa laga dhigayaa markii fat. haddii uu fast yahay metabolismkaagu marka caloosha cuntadaada saa u gasho energy markiiba laga dhigayaa. waxay dadkan aad u aragtid cunto walba cunaya haddana aan baruurta aan ku kordhin. horta skinny fat waxa la yidhahdaa nolosha gacmahood ka dhuubantay lugahood ka dhuubatay kin caloosha intaa yara dhexda amba chest ha noqoto amba caloosha hareeraha koornayaasha aba waxyaabahaas ay baruurta ku yara badantay meelaha kale aad ku dhuubantay. xilligan halkaa taagnaa baa jirtay oo isweydiinayniyo ma doonaynaan duubto magaraaza laakiin caloosha ma doonayna meesha ka saaran. yaa dhibaatadii yeystay waxa weeyaan caloosha halkaa ku jirtay daba laba habba ay bannaanaa inaan baruurtii meesha ka wada saaro markaa aan muruq fiican dib u dhiso iyo inaan intaan cuntada aad iyo aad u badiyo sidaan muruq u dhiso. dee haddii aad doonaysa inaad muruq si sida caadiga inaad cuntadii badisaa oo borotiinkii waxyaabaha badisaa laakiin waxaa kugu biiraya baruur innaba aan caadi ahayn. markaa taa xalkeeduna noqonayso inaan hadhow baruur aad iyo aad u badan intii markii hore saarnayd oo ku darsameen cuntadii badnayd ee soo kordhiyey inaan hadhow ka wada jaro. labadaas horta tacaamka la hadlo waa xal laakiin waxaa jira xal kale laadan ogaan lahaa xilligaas waqti innaba caadi ahayn aan sayf garan lahaa oo intuu doono dhaama labadan xalee kale waana intaan kaga hadlayno videogan. haddaba markaa waxaan sameeyey inaan cuntadii tan aad iyo aad u yareeyey hal waqti ayaan cunaya halkaa waqtina xitaa waa caadiya maan cunay heer aan ku sii raagay katinka heer aan ku sii raagay cunto yaraynta. metabolism waa habkan ay isku bedelayso cuntada calooshaada gashaa ay u bedelayso jirku amba uu u bedelayo jirku energy amba nafaqadii uu baahnaa. habkaas ayaa super slow u noqday uu bedelayba jirkaygu energy mar walba bilaa energy baan ahaa anoo xitaa wax yara qanaya magaraasa bilaa energy baa ahaa markiibana fat baa loo bedelaya. metabolismkaaga hadduu slow yahay markuu calooshaada saa u gasho cuntadu ayaa laga dhigayaa markiiba fat. haddii uu fast yahay metabolismkaagu marka caloosha cuntadaada saa u gasho energy markiiba laga dhigayaa. waxay dadkan aad u aragtid cunto walba cunaya haddana aan baruurta aan ku kordhin metabolismkooda fast ah. markaa waxaad doonaysaa metabolismkaagu inuu normal noqdo magaraasa dadkaasna dhibaata haysato dee cunto walba calooshooda gelaysaa dee waxyaabihii ay doonayeen loogu bedeliya markiiba energy ba loo bedelaya. waxyaabihii doonayeenna hadday noqoto muruqi hadday noqoto baruurti haddii waxay dootaba noqoto dadkaasna dhibaato gaar ah haysta magaraasan. laakiin haddii metabolismkaagu uu slow yahay waxay doonaysaa inuu normal soo noqoto meeshii caadi yahay intaad u baahantay loo bedelo muruq intaad u baahantahayna loo bedelo baruur intaad u baahantahayna energy loo bedelo sida caadiga uu jirku isku nafaqeeyo. haddaba intaynaa hadalka wasaa usii badan xalkeedu waxa weeyaan in cuntadaadu haddii ay 3 waqti ka badan tahay aad yarayso 3 waqti caadiya ka dhigtay 3 waqti weliba clean oo nadiif ah oo cunto hagaagsan. cuntada hagaagsan markaad ka dhigtid oo cuntada nadiifta clean waxay ku saameysaa kooxda nafaqadooyinkii aad u baahneyd jirkaagu helo. haddii aana doonay inaad markaad damiisay kanka amba aad mugeyntii iyo kaaliyihii iyo waxyaabihii dee waqtigaas in la kuma sheegayso waxyaabihii ay ahayd inaad samayso kaaliyihii mugeyntii xarigaboodii adu waxyaabihii dee dhaqdhaqaaqaagu badinayay dhaqdhaqaaqaagii badnaadee waxyaabahaas haddaad doonaysan markay tatinkaagu uu dhammaado aanad baktiin waana cunto clean aad sii wataa. cuntada clean hore ku sahleysa inaad hagaagsan horta aad absorb garisid aad nuugtid. 3 kamboon buu body masskaagu amba oleyskaagu marka laga reebo organiska iyo xididada iyo waxyaabahaas biyaha iyo waxyaabahaas marka laga reebo 3 kamboon weyn 3 kamboon waxa weeyaan lafahaagii muruqaagii hilibkaagii iyo baruurtii. haddaba haddaan muruq lahayn oo baruurtii meesha ka saartay maxaa kuu soo dheer lafo yaa tee wadba uganaysaa still duunidii unbaa ku socotaa aba cuntadaada wanaaji aba cuntadaada kume. markaa taa xalkeed waxaa weeyaan inaad jimkii geshin amba aad gurigii ku samaysay waxyaabihii calisthenics-ka amba waxyaaba culusa nafkaad qaatid maalintii dee waxyaaba culusa ku sameyna muruq nastid oo markaa baruurta meesha ka saartid aanad baktiide aad u eekaatid qoftay googo-an jidhka googo-an inay diyaatid. ma doos keliyatina baruurta meesha ka wasaanta keliyatina baruurta meesha ka wasaantina oo dhuumi waxaad doonaysaa adigoo muruq leegaa baruurta meesha ka saartid. markaa habkaa waxaad ku xalinaysaa adigoo baruurtii meesha ka saaraya oo 3 waqti caadiga cunaya sida musabkii beedkii hilibkii kalluunkii
waxyaabihii kala duwanaayo wanaagsanaayo dabiiciga ahaa waxyaabaha sida ku sarxinaan muruq istiko oo adeeshan muruq iyo nafaqooyin u baahnaan jibkaaga skida wayaago timaa wagaagaan adoo waxyaabihii badnaayee laga shankeyn jiro galaasa ayay ku sanaysan heshid adigoo protein meesha ka lumineen oo meesha ka sii saaray protein haddaad u baahatid coaching aan kaa caawinayo cuntadaada aan kuu sameynayo program hagaagsan oo kuu fududoo joogtayn kari sidoo kuu soo koobiyo waxaan oo dhan aan ka hadlayo iyo dheeraad aan dad badanna hore ku soo caawiyo ku gaadheen meel aad iyo aad u wanaagsan muddo kooban waxaad taabataa linkiga yaala descriptionka amba commentska haddaba marka saddexdaadii waqtiga caadiga cunisido weliba saddexdaa waqti ay nadiif yihiin dhaqdhaqaaqaagii iyo lugeyntaadii iyo dee adu waxyaabihii kaardiyaha ahaa oo dhan ay ku wanaagsan yihiin metabolismkaagii baa kacaya jidhkuna wuxuu sameynaya wax la yidhahdo body composition waxa weeyaan adigoo faadkii luminaya ayaad muruqiina siiro wanaagsan u dhisaysaa weliba haddaad bilow tahay kaba sii wanaagsan haddaad qof xoogaa soo yara waday aad tahayna dee slowba yor soconsa laakiin horta way dhacaysaa oo baruutii meesha way ka baxaysaa muruqii iyo jidhkaagii iyo dee adoo soo tahriibay u eegna ma soo baxaysid hadhow marka strategigaas ayay helina harugu qaado markii hore jeclaan lahayn oo qofsa ay ugu dhaawaan kanaasadee gelitahaan loo diray maxaan qaban karay aan ahayn inaan u sheego qof tiimka ay haysato dee hab yaroo ka fududoo qaadi kare marka haddii aad saddexdaas kuwadid waaba inta kiyata u baahan tahay oo kaga baahi kelisid habkan skinny fatka waa yara easy inaad deystid waana insaas sameeyayo wanaad saan sameeyaa go-aanada iyo waxyaabaha aad qorshaysid hadhowna aanad wax alaaliyo wax aad ka qaatay aani jirin markaa muhiimadu waxa weeyaan in aad waxyaabaha maqlaysid aad ficilkii ku dirtay yaa waxa adag ficilkii runtaa fiican laakiin marka horta ugu yaraan wadadii ku hadda yaa wado muddiye ma marisid oo wax allaalay waxa kaa soo baxayaanad gelin wada caban ka haysta kaliya tallaabada qaab uu weeye